وأختين دجان كقيمة لنا هاي waxaad moodaa taladii iyo maaragtay xaqii aan lahayn inaan nagu miiska wax ka fadhiisano talada wax ku lahaano talada asla gooyno inaan ka marana maanta oo kaliya halka fadhiyo gabadh baa markii dambe ii timid gabdhaha xaqoodi siiya shaqada iyaga haya inta rag hadka fadhida gabadh baa jikada ugu jirta oo shaqeynaysa meeshan gabdhaha qurxiyay dhaqaalaha gabdhaha guraya gabdhaha xaqooda la siiyo dhagaxa anaga tuurnay halganka anaga bilownay hormuud anaga ka ahayn wax walba wanaagsan baan hormuud u nahay marka walaalayaal insha Allah hadii ilaahay waxaan jecelnahay inaad talada wax naga siisin oo miiska la fariisano oo go'aanka aan la qaadano talo badan baanu haynaa karti badan baanu leenahay wax badan baanu bedeli karnaa marka dhinaceena baraha la soo eego mid waa midaas midda kale walaalayaal anaga kalsooni badan baanu ku qabnaa dadkii maanta dhan hadlayay waxaad moodaa xoogaa inuu wax jiri kalsooni darro jirto kalsooni baanu ku qabnaa ilaahay baanu ku kalsoonahay nafteedana ku kalsoonahay idinka ku kalsoonahay shalay ilaawa shalay maanta ku ilaawa shalay waa la soo dhaaf maanta aanu joognaa isku meel baanu isku soconaa isku mowqif baanu nahay kulligan waa midaysanahay shaki ma jiro hal meel baa u soconaa annaga deegaanka yaga SSC annaga iska leh annaga ilaahay baanu subxaanahu wa ta'aala nagu abuuray idaan magan uga nahay male shakiga daaya degdeg baan ugu jira maanta hadaan shaki iyo wax bilowno waqti uma hayno waqti uu naga lumin degdeg baan ugu jira dad badan baan sugaya adduunka oo dhan baa halkaas soo eegaya maanta shirka maanta magac Soomaali qof sheegto oo eegeenin male maxaa ka soo bixi doona wax wanaagsan baa insha Allah ka soo bixi doona talada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala saarta rag baa tihiin daraawiish baa tihiin dadkii u bareeray inay maanta cadow la dagaalaan oo maaragtay nimankii gumaysiga ahaa ee Ingiriiska u bareeray ragnimadiisa ugu bareeray xiniyihiisa baa tihiin mid kalena ogaada walaalayaal maanta Soomaali inta wadan ee Ingiriisku ugu gumaystay meel diinta Kiristaanka geyn ma laha meel uu gaalo ku abuurin ma laha Soomaaliya wax badbaadiyay oo maanta diintooda muska ee muqaddaska ah maanta ee Soomaalida haysato dadka u sababaa inay badbaadaan oo gaalo aan wadankan lagu abuurin waa idinka haysiisina ilaahay cirkaas idin gaarsiiyay waa run wax soo dhaceen waa run dhibaato waan soo gaartay maadaama anagu aanu dad darawiish ah maadaama aanu deganahay dhexdhexaadkii Soomaaliya dabcan dabeesha socotay ee burburkii uu keenay ee Soomaali dhibaatadii gaartay ee keenay dabeesha waynu soo gaadhay oo waxay nagu soo gaadhay raganimadayda oo waxay nagu soo gaadhay dhexdhexaadka aanu nahay meel dhex baanu deganahay ceeb ma dhib ma laha aniga cid aan eedeynay male wixii dhacay way dhaceen wax maanta jooga muhiim ah maanta focuska saara walaalayaal toosh baa saalidin ku hayaa wax qeyr baan idinka sugayaa wax wanaagsan baan idinkaga fadhiyaa kalsoonidaas waa leeyahay kalsooni baan idinku qabaa oo dumarkii aanoo matalaya gabdhihii aan matalaya SSC oo gabdhihii Soomaaliyeed aan matalayo kalsoonida aan idinku qabno oo maan idinku kalsoona walaalay ka dhabeeyo wax shar idinkama sugayo qeyr baa halka idinkaga fadhiyaa insha Allah aad baan idin salaamaya farxad weyn bay ii tahay maanta rag aan ogahay halkan fadhiyo ninkii sistay bare halka inuu ii fadhiyo insha Allah dhawaan si gaar ah salaam doona cuqaash sharafta leh madaxdeeda qaaliga oo aad u jeclaa runtii aan ku dhaarto on kulli baaxeeyo gabar darwiish waa ku faanaani maalin aniga ilaahay baa darwiish iga dhigay alxamdulillah ilaahay baa iga dhaliyay marka faanka aan faanayo iga dhabeeyo anoo gabdhihii matalaya anoo maartay lidin sugayo gabdhaha Soomaaliyeed lidin sugaya marka aad baa idin wada salaam ya salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aad iyo aad bay u mahadsantahay Saara imikana